kula wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada wararkeena qodobada idinkugu soo gudbi doona waxa qaybka Cabdiweli Muudey gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu xanibay garoonka diyaaradaha aadan cadeg iyo xiisad ka dhalata hadaba yaa bixiya amarka lagu celiyo Muudey Fahad Yaasiin oo odayaasha beeshiisa eedeymo u jeediyaan kaga aarsada musharaxiinta kale ee u tartami doonta kuraasta beeshaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamaya kulanajiis oo bari lagu dooran doono magaalada Dhuusamareeb lana guddoonsiiyay shahaadada musharaxnimo madaxda dalka ugu sareyso oo ka taxsiyeysay Allah u naxariistay geeridii ku timid Abwaan Cabdikariin Jiir oo Muqdisho ku geeriyooday maantay qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena Somali News ee u diyaar garooba markale kulan wacan oo wanaagsan waa habeenimo Axad sii baxaysa Isniin soo galaysa taariikhda waa 13 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan waqtigoodu dhamaaday Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa maanta loo diiday inuu ka duulo garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho sida aynu xogtu ku helnay Muudey ayaa ku sii jeeda magaalada Baraawe ee maamulka Koonfur Galbeed caasimada u ah si ugu tartamo kursiga oo ku fadhiyay sumadiisa Hoob 145 diyaaradii ka qaadi lahayd gudoomiye ku-xigeenka koobaad garoonka magaalada Muqdisho ayaa lagu amray inaysan ka bixi karin waxaana la soo warinayaa in weli Muudey uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha isaga iyo ciidamadii uu watay amarka ka yimid kadibna oo halkaasi lagu xayiray xogaha ayna helna ayaa sheegaya in tilaabada lagu hor istaaga Muudey oo uga dhoofa magaalada Muqdisho inuu bixiyo la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin oo la soo warinayo inuu hunguriyeenayo booska uu ku fadhiyo Muudey gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka kadib cadaadis xoogan oo kaga yimid kursiga yaalo magaalada Beledweyne ee 86 kursigan uu ku fadhiyo Muudey ee 145 waxaa si gaar ah loogu xiray Maxamed Weli Cabdullaahi Sheekh oo reer Australia ya Fahad Yaasiin oo saaxiibo dhowla madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa sidoo kale isku hayb yihiin Muudey ayaa waxa uu gacanta ku hayaa maamulka kursiga uu maanta dhaafiyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya kaas oo ku wajahnaa magaalada Baraawe balse rabitaanka Fahad Yaasiin ayaan arintaasi dhaafisay tan iyo markii uu bilaabatay doorashada golaha shacabka waxaa socdo qorshe ujeedkiisu yahay in doorashada golaha shacabka lagu soo saaro saraakiil ka tirsanisa si ay u helaan xasanad kaas oo qayb u ka yahay Fahad Yaasiin kulanajiis oo bari lagu dooran doono magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale Yaasiin Faray oo hore lagu doortay Dhuusamareeb dhankeeda oo ah kusimaha taliyaha hay'adda nabadgelyada Sirdoonka xulafada farmaajo Fahad ayaa isku day kasta u sameeyay sidii u xaqiijin lahaayeen rabitaankooda ku aadan doorashada gaar ahaan xildhibaanada lagu raadinayo xasanad sidoo ugu hela Fahad oo isaga gadaal ka reexaya leeska xulafadani Fahad Yaasiin oo xalay la shaaciyay kursiga waayihii dambaba la hadalhayay inuu isku soo sharaxi doono ee yaala deegaan doorashada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaana odayaasha dhaqanka beeshaasi waxay ku baaqeen inaysan loo dooran karin isla markaana haddii taasi dhacdo waa odayaasha beeshiisa in ay ka dhici doonto waaqib xumo aan la mahdin maadaama ay sheegeen inay saxiix 2016 oo haatan odayaasha aan matalin uu muddo ka badan 4 bilood guri ugu xiran yahay sidoo kale Fahad Yaasiin ayaa caqabada ugu weyn ee ka haysata gobolka Hiiraan waxay tahay maadaama lagu tuhmayay Egraan Taliil Faarax oo hay sargaalad ka tirsan hay'adda nabadgelyada Sirdoonka qaranka xilkii intuu hayay xilka Fahad Yaasiin lana waayay iyo sidoo kale gobodfalyo siyaasadeed oo kale oo qayb ay ka tahay mid uu maanta ku hor istaagay gudoomiye Muudey amar ka yimid kadib oo ciidamo hor dhiga sheegan inuusan ka bixi karin magaaladaasi Muqdisho u dhoofi karin Baraawe caasimada maamulka Koonfur Galbeed dhinaciisa kursiga maanta laga hor istaagay inuu biri u tartamo gudoomiye Muudey ayaa la xaqiijiyay ayaa odayaasha kursigaasi waxay xuseen inaysan laga reebi karin tartanka iyagoona ugu baaqay madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu gudoomiye Muudey yahay shakhsiga matalaya kuna soo saaro balse lafta gareen lama oga sidoo uga jawaabi doono codsiga odayaashaas maadaama maanta gudoomiye Muudey isu hor istaag aan ilaa hadda uusan ku bixin lagu sameeyo garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho xiisad xoogan ayaa ka taagan doorashooyinka waxaana haatan mar kale ee cadaadis ka imaanaya sidii Fahad Yaasiin xil ugu heli lahaa filla Soomaaliya xilligaane ay ku majaxaabinaysa siyaasiyiin badan maadaama kuraasta deegaan doorashadiisa ee beeshiisa kaliya tahay waxa la raadinayo Beledweyne ay qorshuha inuu soo gaaro balse xogaha hoose in Helen ayaa tilmaamayo inuu haatan rajo weyn ka qabo sidii isugu soo saar lahaa kursiga deegaan doorashadiisa ay tahay Baraawe ee Koonfur Galbeed laga soo dooran doono oo hore ugu fadhiyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Muudey oo isku hayb ay yihiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir
markaana magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa ka socota doorashada xildhibaanada deegaan doorashada koobaad ee Galmudug iyadoona tiro xildhibaanaha halka laga soo saaray kuwa kalena maalmaha soo aadan la soo gabagabay doono. Waxaa maanta shahaadada musharaxnimo la guddoonsiyo oo biri Dhuusamareeb lagu dooran doonaa gudoomiyaha xisbiga wadajir musharax u taagan xildhibaan iyo mid madaxweyne ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta qaatay shahaadada musharaxnimo ee kursiga ay sumadiisa tahay hoob 138. si lamida waxaa sidoo kale shahaadada musharaxnimo la guddoonsiiyay Cabdullaahi Aadan Kulana Jiis oo ahaa musharax xildhibaan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah kursiga hoob 40 oo laga leeyahay waqooyiga gobolka Galguduud. Kulana ayaa ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay'adda NISA iyadoona haatan uu doonayo xilka xildhibaannimo oo loo badinayo inuu ku soo baxo. Kuraastan ay doorashadooda bari ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb waxaa ku loolami doona siyaasiyiin dhowr oo ka soo jeeda beelaha iskale kuraastaasi hase ahaatee ma badna odayaasha beelaha ayaana sida la sheegay labada shaqsi oo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale Kulana Jiis u xiray labada kursi iyo kuwa kale oo bari lagu dooran doono magaalada Dhuusamareeb shakhsiyaad gooniya. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta shahaadada musharaxnimo waxay siiyaan labadan musharax iyo sidoo kale waxaana malxiis u noqon doonta Cabdishakuur Cabdiraxmaan gabar oo lagu magacaabo Naciimo Xuseen Cali. Hogaamiyaha xisbiga wadajir u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaana biri la filaya in lagu doorto Dhuusamareeb waxaana siyaasiyiin uu ka mid yahay xubnaha ugu adag ee mucaaradka ku soo horjeeda farmaajo oo loolanka kula jiro. Isma cadda sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu guuleysan kara madaxweynaha Soomaaliya balse waxa uu helay haatan xasaanad xildhibaan maadaama uu 4 sano ee la soo dhaafay uu caqabad weyn ku hayo mucaarad filo Soomaaliya tiro dhowr jeer weerar xoogan ay ku qaaday sida ay ugu qaariji lahaayeen balse taasi ma aysan dhicin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qayb ka ah siyaasiyiinta mucaaradka ee aadka uga soo horjeeda filo Soomaaliya 4 sano ee madaxweynaha haatan waqtigiisu u dhamaaday oo xilka hayay iyo 1 sano oo dheeraad ah oo ku darsaday. Kulana Jiis sargaalkan ka tirsan hay'adda NISA ayaa lagu tuhmayaa dhankiisa shaqaqooyin iyo sidoo kale falal uu ku lug lahaa taas oo dadka u sababeynayaan inay tahay waxa uu doonayo kursigan sidoo ugu maadan lahaa maadaama saraakiil badan oo NISA ka tirsan lagu soo saaray doorashooyin ka dhacay deegaano badan. Waxaa horey ugu guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb agaasimaha ku meel gaarka ah ee NISA Yaasiin Farey waxaana qorshuhu yahay sidoo kale in Kulana Jiis biri lagu doorto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyadoona xalay shaqaaqa ay dhexmartay ciidamo kala taabacsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Kulane oo wada degan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Dhuusamareeb waxaa ka socda loolan adag oo kuraasta haatan harsan iyo mid aqalka sare uu shaaciyay madaxweynaha Galmudug oo horey isaga casilay Senator Dhagey lagu qaban doono doorashadooda Dhuusamareeb maalmaha soo aadan la soo gabagabay doono si loo gudagalo deegaan doorashada labaad ee maamulka Galmudug oo ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Inkastoo waqtiga loo asteeyo doorashada ay naga xigta wax ka yar 12 maalmood haddana waxaa muuqato in ay ka dib dhici doonto waqtiga loogu talagalay maadaama maamulada qaar inta badanba doorashada aysan gaarsiin meeshii loo rabay. Waxaana ra'iisul wasaare Roble oo kulan shalay la qaatay safiirka dalka Mareykanka ee Soomaaliya uu sheegay in doorashada waqtigeeda lagu soo gabagabay doono isla markaana Mareykanka ayaa tiro dhowr jeer ku goodiyay inuu saari doono xayiraado xooggan. Waxaana toddobaadkii la soo dhaafay dowladda Mareykanka ay sheegtay in ka badan 50 siyaasi oo Soomaaliyeed ay saartay xanibaado duulimaadyaha dalka dibadiisa aysan ugu dhoofi karin maadaama ay sheegeen inay qayb ka yihiin dadka ay xilligan Soomaaliya ka dhaqaaqi laadahay ee curyaamiyay dimuqraadiyadda Soomaaliya doorashadana saameynta xooggan ku yeelatay. beesha caalamka iyo sidoo kale dhinacyada taageera Soomaaliya ayaana ku baaqaya xilligan in 25 Febraayo oo horey golaha wada tashiga qaranka shirkooda lagu soo gabangabeeyo ballanta inay ahayd doorashada golaha shacabka kadibna la gudagalatan gudoomiyaasha baarlamaanka intaasi kadibna la doorto hogaanka ugu sareeya dalka oo tiro musharaxiin ah ay u taagan yihiin xilligan uu qayb ka yahay madaxweynaha 4 sano ee la soo dhaafay hogaaminaya Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Markaana madaxda ugu sareysa dalka ayaa ka tacsiyay Allaha u naxariistay geeri ku timid abwaan Cabdikariin Faarax Qari oo ka mid ahaa abwaaniinta Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan dalka. madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay Allaha u naxariistay maareeyo ku-xigeenka tiyaatarka qaranka marxuun Cabdikariin Faarax Qari oo ku magac dheeraa Jiir oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. madaxweyne Farmaajo ayaa xuseen marxuum Cabdikariin Qari oo ahaa abwaan mulaxameyste iyo dhaqan yaqaan door weyn ka soo qaatay horumarinta fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed si kor loogu qaado wacyigelinta bulshada isagoo ka mid ah kooxaha iftiin ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya.
Allah u naxariista marxuum Cabdikariin Jir ayaa dadkiisa waxay ugu soo adeegay muddo dheer gaar ahaan dhinacyada fanka iyo suugaanta iyo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed. wuxuuna ku soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada, wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska, tiyaatarka qaranka oo hadda maareeya ku-xigeenka ahaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaana marxuumka Alle uga baryay inuu hoygiisa Janno Firdawsa ka yeelo samir iyo iimaan uu ka siiyo qoysaskii, eheladii iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay. Si lamida dhinaciisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay geerida maanta ku timid maareeya ku-xigeenka tiyaatarka qaranka Cabdikariin Faarax Qaare oo loo yaqaan Jir. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu tacsi u diray qoysaskii, eheladii iyo bahda fanka iyo suugaanta iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay. Allah u naxariista marxuum Cabdikariin. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa marxuumka waxa uu ku tilmaamay inuu kamid ahaa tiirka fanka Soomaaliyeed isagoona hal abuur lahaa, hibo iyo sidoo kale naadir ku ah gaar ahaan dhanka laxanka sameynta oo caan ku ahaa. Allah Janno Firdawsa ka waraabiyo ugu bishaaray ahli iyo asxaabtii ummadda Soomaaliyeed samir iyo iimaan Rabbi ha ka siiyo ayuu yiri Maxamed Xuseen Rooble oo ka taxsiyeynay geerida ku timid Cabdikariin Faarax Qaare oo loo yaqaan Jir. Inta ayaan ku soo gabagabaynaa daawadayaal barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News meel lamid ah qiyaar inta kulmi doona nabadgelyo.